Soomaalidu waa dad gurgura oo xilliga guga iyo aaminta jilaalka u hayaama hadba meesha biyo iyo baad loogu sheego. Geelu waa xoolaha ay hanti ahaan u leedahay Soomaalidu waana maalka ay ugu jecel yihiin waxaana ay guureen koonfurta Wajeer iyagoo ka gudbay xuduudda ay la wadaagaan qabiilka loo yaqaan Booran. Booran waa duul Oromo ku abtirsada dhaqan ahaana ka gedisan oo bilaadiina waxaana ay dhaqdaan xoolaha looda oo caws iyo biyo ku noola isla markaana aanay isku gelin geela oo fuuqsada biyaha isagoo cagta marinaya cawska iyo doogga looda loo seeray. haddaba looda ayaa manaafacaad xoog weyn u leh dalka Kenya waxaana dawladdu ka iibsataa caanaha subaga saanta iyo haraga. Booran waxay ka cabatay Soomaalida hayaamaysa ee wadata geela cagtiisu la tagtay cawskii iyo cuudkii xoolahooda iyagoo u soo dacwooday maamulka Kenya xilligaasi oo hogaaminayay Danyara Moi. daawada waxaynu ka hadlaynaa xasuuqii Waagala ee sanadkii 1984 Kenya u geysatay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dhulkii xoogga lagu siiyay ee NFD. dagaal qadhaadh oo la isu eebagurtay qoomiyad kastaana soo duntay colkeedii baa dhex maray Booran iyo qoomiyadda Soomaaliyeed ee Kenya waxaana arrintani keentay in dawladdii Kenya ay dhinaca saarto qabiilka loleyda ee Booran. 36 sano ayaa ka soo wareegtay gumaadkii ka dhacay garoonka diyaaradaha Waagala ee magaalada Wajeer ee waqooyi bari Kenya NFD ee February 14 1984 halkaasi oo ciidamada Kenya xasuuqeen 2,000 oo ruux oo Soomaaliya. xasuuqa loo yaqaan Waagala oo ka dhacay magaalada Wajeer ayay dawladda Kenya ku dishay 2,000 oo ruux oo Soomaaliya. ciidamada dalka Kenya oo kuwa aan naxariis u lahayn dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka waqooyi bari Kenya ayaa dadka Soomaalida ah waxay ula dhaqmaan sidii dad aan dalka u dhalan. waxay ciidamada dalka Kenya bishii February 7 1984 magaalada Wajeer ku ururiyeen 5,000 oo nin oo Soomaaliya. waxa kale oo ay February 10 isla bishaasi magaalada Garissa xero ku ururiyeen 6,000 oo kale oo Soomaaliya. 5,000 ee Soomaalida ahayd ee ay ciidamada Kenya ku oodeen Waagala baadiyo biyo waa laga soomiyay muddo 7 waxa kale oo laga xayuubiyay wixii dhar ay xidhnaayeen kadib kolkii ay dadkaasi 7 maalmood gaajo oon dhaxan iyo kulayl ku jireen. Waagala ayay maalintii 7 ayay dadku ishayn waayeen oo ay jiireen booliiska dabadeedna booliiska Kenya ayaa xabad ku furay. Those who tried to escape were shot. waxaana halkaasi ku dhintay 2,000 oo ruux 3,000 oo kalena booliiska ayay xoog ku jireen. suuq weyn dhacay oo rag Soomaali asku dhamaaday markaan dhibaato weyn waa ka soo gaartay sababtoo ah dadkii maalintaas dad fara badan oo hadda aan xisaabtooda aan koobi karin meesha ku dhamaaday. dhibkii maalintii ka gaaray dadka xoolihii laga dhameeyay dadkii la dhameeyay meeshana lagu guubay markaan dadka isaga hay ilmahooda naftooda dhib weyn soo gaaray sababtoo ah ilmihii agoomaa wada noqdeen dhibaato fara badan meesha ka gaartay markaan dhibka isaga hay maalintaas dadkii gaaridada allaankan odayaal oo hadda dhibaatadii meeshan qoonjada ka gaartay ay ama naafa ka yihiin ama ndoola ka yihiin oo wali dhibka isaga hay nabarkii berigaas ay qabaan wali jir markaan meesha dhibaatadeedu waa dhibaato fara badan oo saka maalintaas aabahii dukaan isku haystay waa deganay dadkii la soo ururo meeshan la keenay isku jiri ilaahay ana ka badbaaday marka dambe dadkii fiigees kale dadka meesha oo lagu biyo waa lagu gubi 3 bari ku xareysnaayeen ka dambe waa lagu dhaartay ka dambe saa lagu gubi dadkii ay ko dhaawac barkood la ururay duurka lagu soo daaday dadka ay ka waxaan warkooda hayaa inay dadkii nafta ay ka bixiyay kaadada dadkii yara nafta ay ku jirto ay cabeen sidii ideed ay ku dhib qaba duurka laga soo ururi dadkii kale ay meesha ay ko dhaawac laga duur ku bixeen oo waraaba ku cunay dadkii kale ay ba meeshan ku bixeen oo meeshan ku midoobaadeen bilcaamii meesha lagu xoogay ay kana duurshan lagu xoogay nimankana meesha lagu soo xareey dhibkaas wallahi waa dhibada la xasuusiyo. toddobaad kadib waxay booliiska Kenya dabceen inay laayaan dadkii ku xereysnaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Garissa. dawladdii Soomaaliyeed ee markaasi jirtay oo aad uga xumaatay xasuuqa ka dhacay Waagala ayaa sheegtay in dadkaas sabab la'aanta ay Kenya u leysay ay yihiin Soomaali.
dad kale oo badanna ay ugu xareysan yihiin sida xoolaha Gaarisa. waxay Soomaaliya ku hanjabtay inay soo weerari doonto dalka Kenya haddii ay wax yeesho dadka ku xareysan garoonka Gaarisa. markii uu dhacay xasuuqa Waagala, dowladda Kenya iyo dowladdii Soomaaliyeed ee hogaaminayay Jaale Maxamed Siyaad Barre khilaaf adag ayaa soo kala dhexgalay. arrintaasi waxay keentay in la kala qaato safaaradaha, waxaana soo dhex gashay dowladda Sacuudiga oo dhexdhexaadisay dowladdii Soomaaliyeed. hanjabaadaasi Soomaaliya jeedisay awgeed dadkii Gaarisa waa la sii daayay. dadka laynayna dadkii ilaalin lahayaasi oo dowladdi ay layni meeshan waxa way Habaasweyne ilaa Giriftu wajeer afarteeda dhinac ayaa dadka la lahayaastay dogodiyaan ay ninkii dhahaba waa la soo aruurnay inta la isugu keenay 3 bari inta dadka lagu soo aruurnay 3 bari markay dad isugu imaadeen waqtiga asagana waqti kulul oo waqtiga orxeedka la dhaha ay ahayd dadkii dharka laga fiiqay waxa la siixay jid meeshan dharkiisii korna waa orax hoosna waa harar dadkii meeshii bay ku ba'een dadkii maalintii u horeysay la keenay maalinta labaad dhimashay bilaabeen dadkii wax dhintay oo on u dhintay wixii soo heray oo dhaartii labaad iyo dhaartii saddexaad la keenina askartii baa ku dishay wax qori lagu dilay wax ul lagu dilay wax ayagoo carrayn xabad lagu dhiftay ayaa laga dhigay maalintii dambe saddexaad dadkii wixii dhintay waxa la isku keenay meeshaas batrool lagu shubay dharkoodii kor laga saaray batrool lagu shubay meeshaas. tirada dadka intaas leeg ee lagu xasuuqay Kenya ilaa iyo maanta ma jirto cid loo qabtay ama xitaa raaligelin ka bixisay. dadka Soomaalida ee reer Kenya waa dad aqoon leh, waxaase nasiib darro weyn ah in ilaa iyo maanta aysan jirin wax u dooda ama ka hadla xuquuqda dadkaasi la xasuuqay. haddii ay noqon lahayd mas'uuliyiinta u dhalatay gobolka Waqooyi Bari Kenya, aqoon-yahanka iyo xitaa dadweynaha caadiga ah ee Soomaaliyeed. dhibaatadani mid la mid ah ayaa waxay ka dhacday magaalada Gaarisa sanadkii 1968, xilligaasoo si la mid ah tan ka dhacday Waagala, intii xere lagu ururiyay dad Soomaaliyeed dabadeedna kulligood la laayay. waxaa arrintan muddo daba socday hal wiil oo aabihii uu ka mid ahaa dadkii Waagala lagu xasuuqay. wiilkaas oo ku nool dalka Canada waxa uu waayay hal ruux oo markhaati u noqda kolkii uu maxkamad geeyay dalka Kenya. dalka Kenya oo sheegta inuu yahay dal dimuqraadi ayayna arrinta dimuqraadiyadu saameynin dadka Soomaaliyeed ee ku nool Waqooyi Bari Kenya. waxayna booliiska Kenya ilaa iyo maanta ula dhaqmaan dadka Soomaalida si ka gedisan dadweynaha kale ee Kenya. doorashadii ismaandhaafka keentay ee ka dhacday dalka Kenya 2008 waxay booliiska Kenya si aan toos ahayn u dileen boqolaal ka soo jeeda qabiiladii xukunka isku haystay. waxaa maanta socda inay mas'uuliyiin badan oo Kenyaan ay shaqadooda waayi doonaan, qaarna la xukumi doono. waxa kale oo magdhow la siin doonaa qoysaskii ay dadka ka dhintay khilaafka siyaasadeed. haddaba kumanaanka Soomaalida ee labada goor ee isxigta lagu xasuuqay Waqooyi Bari Kenya miyayna lahayn wax magtooda sheegta? xasuuqa aynu ka hadlaynaa wuxuu ka dhacay magaalooyinka Gaarisa, Wajeer, Waagala iyo deegaamo kale. dadka Soomaaliyeed ee halkaasi lagu xasuuqay waxaa la sheegay inay u badnaayeen qabiilka Dugoodi oo qabiil Soomaaliyeed. ugu dambeyn waxaa la joojiyay barnaamij ka sheekeynayay sida loo xasuuqay shacabka Soomaaliyeed. ragga barnaamijkaasi joojintiisa ka qayb qaatayna waxaa la sheegay inay ka mid ahaayeen rag Soomaaliyeed oo haatan ka baarlamaanka Kenya ku jira, isla markaana saraakiil ka ah ciidamada dalka Kenya, jagooyinna ka haya dowladda waddankaasi ka talisa, iyagoo ilaashanaya xilkooda iskana ilaawaya dhiigga shacabka Soomaaliyeed. ku-xigeenkii hore ee afhayeenka baarlamaanka Kenya Faarax Macalin Dawaara ayaa waxa uu sheegay, waan aqaanaa kuwii geystay xasuuqii Waagala, mana aha kibligaad, innaga ayaa ka hortegaynaa guddiga maxkamadda ayaynu geyn doonaa. wuxuu difaacayay eedeymo loo jeediyey Danjire Batwell Kibligaad oo madax ka ah guddiga runta iyo dib u heshiisiinta oo baadhaya gaboodfallo horey uga dhacay dalka Kenya oo loo geystay qabiilada Kukuyada iyo kuwa uu ka soo jeedo Raila Odinga. daawadayntaasi waxaynu ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkii gaarka ah ee nuga hadlaynay xasuuqii Waagala oo dowladda Kenya u geysatay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool NFD. barnaamijkani waxaa idila socodsiinayay anigoo ah Maxamed Aadan Dirir. tan iyo kulanti dambe, nabadino. Those who tried to escape were shot.